Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum. Kulanti habboon daawadayaal idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 15 ee taxanaynii irbadii eelka reebtay. Shaqadani waxaa qoray Cabdillaahi Saalax Axmed. Waxaanay qaybtan ku bilaamaysaa sidan. Waqtigii ururkayga ayaa soo dhawaaday. Culayskuna uu igu sii siyaadayay. Mahad wuxuu igu adkeeyaba ugu dambeyn wuxuu igu qanciyay inaan soo baxo Sweden-na imaado. Waan ka yeelay. Fiisana uu ii soo saaray. waxaanu isweydiinay sida ilmahaygu uga badbaadi karo xanuunka isagoo aan soroobinna loo keeni karo dunida buuqa. Dhowr dhakhtar ayaan la kulannay, talana weydiinay. Intuba waxay noo dhaafi waayeen in qalliin adag la gelayo, taxadir badanna uu u baahan yahay. Waxay kaloo noo sheegeen in aanay jirin damaanad buuxda ama boqolley dhammaystiran in ilmahaygu xanuunka ka badbaadayo. ma ay jirin wax kaloo aanu samaynaa. waanu ku qanacnay, diyaarna u noqonnay qalliinka. bil kadib waxaan jiifay cusbitalkii laygu qaleeyay. waxaa ila joogay takhasusyahankii Jarmalka ahaa ee qalliinka gelayay. saacado kooban inuu qaadanayo ayaa naloo sheegay. duco ayaa dad badani ila garab taagnaayeen. qalliin saacado qaatay ayaa soo afgo'ay, laguna guulaystay. ilmihii yaraa oo wiil noqday ayaa loogu wanqalay. isla markii qalliinka lagu guulaystay waxa la gaadhay daawooyinka lidka ku ah fayraska kahortag ahaanna loo siiyey. saacado badan kadib waxa laga eegay dhiiggiisa fayraska. farxadda aan la wada qaylinay ayaa ahayd inuu negative noqday. kumaanu kalsoonayn ee dhowr jeer oo dambe ayaa baaritaano loo sameeyey. negative-ka waxba iskama bedelin. farxaddu hadday bardhamaad leedahay fikteeda u sarreysa ayaan joognay. qoys dhinac walba u dhammaystiran, mahadnaqa eebbana afka ku haya ayaan ahayn. baxnaano badan iyo nasasho dheer kadibna howlahayagii ayaan u xiisooday. waa sidaa shaqadu markaad ku faraxsan tahay, firaaqada ayaad nacaysaa. dib ayaan u bilaabay howlihii. safarkiisa waan yareeyey oo dalkii aan u soo wareegay ayaan gudihiisa ka bilaabay. maalmaha isbuucyada iyo biluhuba way ordayeen. durba sanad ayaa tagay. deganaan iyo farxad sii siyaadaysa mooyaane wax isdhimayay ma jirin. xasuus kooban ayaan la ilmeeyey sawirkii Mahdi iyo ayaalana indhaha ka soo celiyey. koobiye ah intaan dhowr jeer ka baday ayaan xaggii hoolkii xafladdu ka socotay u soo baxay. safkii hore ee madaxda loo baneeyay ayaan fadhiistay. Mahdi iyo ayaalana garab degay. muddo ayaa xafladdu socotay, mahadnaq iyo bogaadinna u badnayd. ugu dambeyntii ayaa lagu dhawaaqay magacaygii. masraxana la igu yeedhay si la igu guddoonsiiyo abaalmarinta dadka ugu saameynta badan dhanka nafhurista iyo taageeridda aadmiga. taariikhda aadmiga waa tii u horreysay ee qof noocayga ah la siiyo. sawaxanka sacabka iyo hugunka ka baxaya meesha ayaan iskala garan waayay. degdeg ayaan ku gaadhay halkii aan dadka uga khudbadayn lahaa. cabbaar ayaan sugay intaay sacabka joojinayeen. indhahana la raaraacay, misana safkii hore labadaydii dheeman ka helay. intaan ku dul bakhtiistay ayaan hadalkii ku bilaabay. waad mahadsantihiin in badan. ma doonayo inaan waqti badan ku lumiyo taariikhdayda iyo waxaan qabtay. baday intiina halkan joogtaa waad ka dheregsantihiin oo meel unbaad ka daawateen, akhrideen, ama ugu yaraan intaad halkan fadhideen warqadaha kuraasta laydiin saaray ayaad wax ka akhrideen, amaba qofka kugu xiga ayaad ka xansatay. sidaa darteed ma doonayo taariikhdayda mugdiga badani ka muuqdo inaan idiin bilaabo. ehel iyo dadkii aan jeclaa ee aan dunidan ku waayeyna xasuustooda ku laabto. midse ayaan idinka codsanaya sidaad iminka niyadda igu dhisaysaan, sacabka igu tumaysaan, jacaylkana igu muujinaysaan. waxaa jirtay waqti aan aada ugu baahnaa, dacdarro badanna i haysay. waqti aan keligay hoos u ooyayey, dhimashadana diyaar u ahaa. waxaa heerkaa i gaadhsiiyey wuxuu ahaa nacaybka bulshadii idinla midka ahayd uun. fadlan dadkan daryeel gaar ah u muujiya, jalleecada takoorkana ka ilaaliya. kuwaas ayaa intan aad ii muujinaysaan iyo ka badanba mudan. iyaga ayaan caawa u hanaynayaa abaalmarintan aad igu sharafteen. waad mahadsantihiin mar labaad.
taxanihii irbadii eelka reebtay ee qoray qoraa Cabdilaahi Saalax Axmed intaas ayuu inoogu eegyahay fadlan dhugta oo dhuuxa macnaha ku jira sheekadani idinkoo si fiican markaasi u dhadhansanaya waxaa la idinka rabaa inaad fariinta sheekadani ay gudbinayso si fayoobida ku dheehan tahay u fulisaan wixii faalla'ana barta commentiga noogu reeb aad ayaad mahadsantihiin intay tan mid lamid ku kulmi doonana waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabad geliyo